بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan rabaa inaan ka hadlo ilaahay hadduu yidhaahdo programminta sida wax loo programmiyo. waxaan rabaa inaan intii karaankayga aan uga faa'iideeyo dadka. mar walba markii programmin laga hadlaayo, programminta waxay mar walba ku xiran tahay luuqad. ma c baa isticmaalaysaa, ma c plus plus baa isticmaalaysaa, ma ay waxaa isticmaalaysa waxay ku xiran tahay mar walba luuqadaad isticmaalaysa markaa rabto inaad wax programmiso. marka ani laakiin waxaan focus ka saarayaa Java. intaan hadda videogan ku saabsan waa muqaddama ama horumar aan soo horumarinayo ama aan introduction ku samaynayo Javada iyo programminta caamatan. saan ognahay Java waa luuqadda ugu isticmaalka badan caalamka. marka Javadaanan anaga focus ka saarayna mar walba aan wax programminayno iyo mar walba aan rabno inaan darsi ama wax qaadano waxaan ku sameynaynaa Java. okay, sideeda maxay tahay program muxuu yahay sidiisa? program marka caadi la yiraahdo waa barnaamij muxuu yahay? bal aan fiirino barnaamij wuxuu yahay. markii barnaamij la yiraahdo oo program computer khuseeyo la yiraahdo waxaa la yiraahdaa waa tacliimaad ama waxyaabo loogu talagalay tilmaamo ah oo loogu talagalay computerka inuu raaco. waxbaad samaynaysaa, waxaas waxaad ugu talagashay computerkan inuu raaco si wax uu kugu soo saaro. kaasaa waxaa la yiraahdaa programming la yiraahdaa. okay, programka sidiisaba maalin walbaan isticmaalnaa, sida emailladoo kale, word processorka oo kale ee wordkan aad wax ku qorayso, video gameska aad aragtay, bank ATM-yada lacagaha lagala soo baxo, waxaasoo dhan iyo wixii lamid oo dhan waxay yihiin waa programyo la sameeyey waaye oo luuqado lagu sameeyey sida C, C++, C Sharp ama Java ama luuqadahan cusub oo hadda la isticmaalo. okay, markii la raaco tacliimaadkii la sameeyey ama aad dhistay waxaa lagu magacaabaa luuqad ahaan waxaa la yidhaahdaa running ama executing. programkii wuu rangaraynayaa, programkii baa rangaraysmaya ama la fulinaya ama fulismaya. taasaa la yidhahdaa markii instructionada ama tacliimaadkii adi aad samayso wixii aad qortay, programka wixii aad qortay. matalan computerka program waxaad ka dalbatay, waxaad tiri waxaad isugu kay dartaa 2, waxaad ku dartaa 3, natiijadii ii soo saar. programkaas tacliimaad baad siisay computerkaas tacliimaadkaasaa siisay. raacitaanka uu raacaya waxaa la yidhaahdaa running ama executing. okay, kombiyuutarada saan ognahay 2 nooc oo waxay qaabilaan ama wax walbaba wuxuu leeyahay oo kombiyuutar markaad samaynayso ama program samaynayso wuxuu leeyahay input and output. wax data ah ama xog ah ood kombiyuutarkaaseeto ama programkaas aad ku samaynayso si uu kuu siiyo wax natiijo ah oo output ah uu kuu siiyo. okay, sida caadiga ah computerka mar walba wuxuu qaabilaa ama receive gareeyaa 2 qaybood oo input ah. waxayna kala yihiin programkii naftiisii oo programkii oo markaa ka kooban luuqad lagu sameeyey ama ka kooban tacliimaadyo la sameeyey ka kooban, iyo daatadii markaas lagu rangareynayo ama lagaga shaqaysiinayo programkaas. labadaasaa mar walba inputka wuxuu ka kooban yahay labadaas. ama outputka muxuu yahay? outputka wuxuu yahay waa wixii daatadii inta programkii lagu rangareeyey ama programkii lagaga shaqaysiiyey natiijadii ka soo baxday markii la raacay tacliimaadkii programka uu ka samaysnaa. markii la raacay natiijadii ka soo baxday saan sheegnay, markii la yiraahdo 1 lagu daray 2 wixii ka soo baxay natiijadaas soo baxday oo computerka uu ku siinaya waxaa la yiraahdaa output. sida meeshan hadda uga jeedno diagramkan wuxuu ku tusinayaa, waa ujeedaa meeshan waxa ku qoran waa data la geliyay computerkii. datadii markii lagu shubay ama lagu qoray uu process gareeyey. markuu process gareeyey wuxuu soo saaray marka output uu ku soo saaray iyo wixii adi aad rabtay marka. okay, input iyo output diagramkana wuxuu ku sharaxayaa siday u kala shaqeeyaan. okay, programyada markii jira caalamka qaybay kala leeyihiin. waxay u qaybsanaan 5 qaybood bay u qaybsanaan. qaybta ugu horeysa waxay tahay waxaa la yidhahdaa the first generation language waa 1GL. kuwan marka waxay ka samaysan yihiin low level language ayay ka samaysan yihiin. waa luuqad levelkeeda hooseeya waaye. waxa ku shaqeeyana mashiinada basa ku shaqeeya. mashiinka yani marka laga hadlayo waxay tahay waa device-ka naftirkiisa ku shaqeeya luuqadaas.
yani waan arki doonaa, gadaal baan ka arkaynaa sida ay waxaan midba waxa uu midba midka kale oo ugula shaqeeyo. Okay, second generation kuwa la dhaha jira ayagana language oo 2GL ah, kuwaasna ayagana sidoo kale waa low level waaye, oo waxay ka samaysan yihiin mujassamaad iyo waxaasay ka samaysan yihiin. inta badanna kuwaas waxa isticmaala waxay tahay kernelska. Kernelska waxaa la yidhahdaa waa operating systemyada sida Windowga iyo waxyaabahaas wixii laga sameeyey, iyo hardware device driverska sida softwarada markii aad rabto matalan USB ama wax cusub baad computerka rabtaa ama kaar cusub aad rabtaa inaad ku geliso, akhrintaas kaarkaas oo akhrinaya waxyaabahaas luuqadda isticmaalayaan waxaa la yidhahdaa second generation language. Okay, waxaa kuu soo hartay qaybta saddexaad. Qaybta saddexaad waa qaybta annaga inta badan focuska aan saari doona, waxaa la yidhahdaa the third generation language. waa qaybta waa high level language, waa luuqad sarreysa. marka levelkeeda la fiiriyo waa luuqad sarreysa. waxaa ka mid a sida C, waxaa ka mid a C++, waxaa ka mid a Java, JavaScript iyo Visual Basic. waxaasoo dhan luuqadahan aad aragto dhan ama luuqadahan intooda badan waxay yihiin ayaga dhan waxaa la yidhahdaa high level language. luuqadahan oo dhan waxaa la yidhahdaa high level language. C sharp baa ka mid a, kol intaan oo dhan waxaa la yidhahdaa high level language. Okay, waxaa jirta iyadana qayb afraad oo la yidhaahdo fourth generation language. ayaga kuwan waxay ka samaysan yihiin waa luuqadahan cusub oo hadda la isticmaalo inta badan. luuqadahan waxay u samaysmaan sidii hadal caadi ah oo kale. computerka markii aad program samaynayso hadal caadi aad qoraysaa, meeshan sida hadda luuqada kaaga cad oo kale waa statements. waa iyaga dhan statementyadana waxay u egyihiin u dhigmaan sida human languageka luuqada dadka caadiga oo kale u dhigmaan, baynama ay kuwa kale sida Java iyo C++ oo yihiin ayaga ay ka duwan yihiin oo luuqadooda ay ka duwan tahay sida loo qorayo, nidaamka loo qorayo. kuwan luuqada sida loo qorayo waa sida adoo hadlayo kale. waxaa leedahay example aan ka wadaa, yani adoo leh 2 waxaad iigu dartaa 3, saasoo kale adoo u qorayo kale u dhigmaan luuqadan kuwan fourthiga. waxaana ka mid a sida Perl, PHP, Python, luuqadan hadda ayadana aadka loo isticmaalo, Rubyga ka mid a, SQL-ka ka mid a. inta badan ayaga waxaa loo isticmaalaa database programming marka la rabo in la programiyo databaseka yani xogta la ururinayo iyo waxyaabahaasoo dhan. inta badan databaseka waa waxa ugu muhiimsan oo ama dowladaha ama iskoolaadka ama jaamacadka iyo waxyaabahaasoo dhan ama sharikaadka ay isticmaalaan. marka luuqada lagu programiyo waxaa la yidhahdaa fourth generation language. Okay, tan ugu dambeysa waxay tahay waxaa la yidhahdaa fifth generation language. tanna waxay ka kooban tahay tools bay ka samaysan tahay oo la programiyey toolisyo. ayaga luuqadan waxay kaga duwan tahay luuqadahan oo dhan iyada sidii visual tools oo kale u samaysan tahay. markay toolkaas ay u samaysan tahay marka laga samaynayo programkii laga samaynayo. luuqadan fifth generation language waa luuqadaha casriga ah. iyada example-adeedana waxaa ka mid a Mercury-ga ka mid a, waxaa ka mid a OPS 5-ka ka mid a, waxaa ka mid a Prolog-ga ka mid a. Okay, balan aan nimana Java. Java waa taan rabna inaan anaga focus ka saarno oo ka hadalno. Java maxay tahay? Java saan hadday usoo aragnayba waa high level programming language. waxay ku jirtaa luuqadaha levelkooda sarreeyo. ayada original ahaanna waxaa soo horumariyey sharikada la yiraahdo Sun Microsystem. waxayna soo deysay ama suuqa soo gelisay sanadkii 1995. Java marka waxaad ku shaqaysaa qaybo kala duwan oo platformska waa operating systemyada sida Windowga, Mac oo kale, Unix, waxaasoo dhan noocyadaas kala duwan oo dhan Java way ku shaqaysaa. saan hadda sheegnayba Java programming language original waxaa keentay Sun Microsystem shirkada la dhaho. waa shirkadaha waaweynka ee caalamka ugu waaweyn ka mid a oo waxyaabahan kombiyuutarada iyo teknolojiyada soo saartay Mareykanka laga leeyahay. waxaana laakiin Java ahaanteeda soo saaray oo markeedii hore bilaabay ninkan la yirahdo James Gosling ee u dhashay Kanadiyaanka ah. sanadii waxaana lasoo saaray saan sheegnay 1995. qaybaha ugu dambeeyey oo Java hadda soo saarto ay soo deyso ama suuqa soo gasho waxaa ka mid a kuwayaalahan. waxaa ka mid a SE13, Java EE for Enterprise Applications oo sharikaadka waaweyn ay isticmaalaan, iyo Java ME for Mobile Applications oo loo isticmaalo mobilada loo isticmaalo.
sida androidyada iyo sida aabyada iyo kaleeto waxyaabahaas oo dhan. Okay, shirkadda Java waxay ballan qaaday oo tiraahdaa Java waxay guarantee ama kuu ballan qaadaysaa inaad hal mar qorto meeshaad rabtana aad ku ran garayso. Yani aad bay u horumarsan tahay, yani say dhahayaan waxyaabo badan oo sources badan iyo waxyaabo badan bay leedahay. Okay, Java maxay ka kooban tahay marka? Saan sheegnay Java waa high level language wey. qiyaas ahaanna way fududahay isticmaalkeeda. Java markaad aragto sida loo isticmaalo way fudud, laakiin dhibka jira waxay tahay computerka hardwarekiisa ma fahmayo high level language-kan. Yani computerka wuxuu ka samaysan yahay motherboardkiisa iyo processorka iyo ramka especially ma fahmayaan high level language-ka ma fahmaan. maxaa marka la sameynaya marka? waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo taas beddelkeeda waxaa la sameeyey si loo helo isu tarjuma high level language-ka in loo tarjumo low level language. marka maxaa loo baahday? waxa la yidhaahdo compiler. compilerkana wuxuu yahay midka u dhexeeya high level language-ka ayuu wuxuu u gudbiyaa ama u translate gareeyaa to the low level language ka dhiga levelka hoose low level language luqada levelkeeda hoose isu ka dhiga. compiler maxaa tahay marka? compilerka wuxuu u tarjumaa saan sheegnay high level language wuxuu ka dhigaa low level language. computerku uu tarjumaa si uu u rangareeyo programkii la rabay in la rangareeyo. waxaad compile garanaysaa ama aad urinaysaa program adoo ku rangaraynaya compilerka ku rangaraynaya. marka compilerkaas programkaas aad ku rangaraynayso oo high level language aad kaga rangaraynayso waxaa lagu magacaabaa source program. taas maxaa la yidhahdaa? source program. compilerkii marka muxuu soo saaraya? marka wuxuu soo saaraya machine ama wax la yidhaahdo assembly language mujasamaad luqawi uu soo saaraya oo lagu magacaabo iyagana object programs lagu magacaabo. okay, marka inta badan kuwa high level language-ka ah markaad rabto inaad ku rangarayso computer inaad ku rangarayso waxay u baahan yihiin compilero kala duwan ay u baahan yihiin because isku mid maaha operating systemyada isku mid maaha way kala duwan yihiin. saan ognahay noocyo badan oo intaasoo nooc oo operating systemyaha jira way kala duwan yihiin. operating system markaan leeyahay waa nidaam tashghiil sida window oo kale mac oo kale waxaasoo dhan way kala duwan yihiin. marka compilero kala duwan bay u baahan yihiin. waxaa marka Java waxay isticmaashaa wax la dhaho bytecode oo Java u gooni ah. bytecodekan marka wuxuu sameeyaa compilerkii maadaama uusan translation uusan ku samayn karin programkii Java uusan ka dhigi karin assembly language ama luqad mujasama uu ka dhigi karin ama machine language uusan isaga toos ugu bedeli karin mid machine walba uusan ugu bedeli karin baa marka waxay soo saaratay waxa la yidhahdo bytecode. bytecodekan muxuu yahay? bytecodekan waa machine language oo iftiraadi ah ama translator ah oo markaasito la yiraahdo waxayna ku magacaabaan Java virtual machine. saasaa lagu magacaaba. okay, programyada waxaa lagu fuliyaa ay Java ku fulisaa wax la yiraahdo just in time ama JIT compiler la yiraahdo kaasoo ah bytecodekan hadda ka hadlaynaa wuxuu sameynayaa wuu ururinayaa wixii loo baahnaa wuu store garaynayaa si mar kale aad u isticmaasho adoonan u baahanin inaad haddana ku samayso compile mar kale aruurin kale aadan ku sameynin. marka JIT shaqadaas uu ku qabanaya wuu ku aruurinaya wuu ku haynaya bytecodeka waa saas. okay, diagramkan wuxuu ku tusinayaa say u shaqeyso. midkaan saan aragno waa adiga wixii aad qortay programkii aad qortay marka compilerkii wuu u gudbaya compilerkii wuxuu ku sameynayaa translate wuu tarjumaya haddana wuxuu ka dhigayaa sidaan haddana wuxuu u gudbinayaa Java virtual machine kaan arkayni kaasaa marka wuxuu u bedelayaa computerka ama hardwareka computerka waxay u fahmi karo ka dhigaya. kana waa iyadoo isla noocyo kale kan korka ku qoran waa saad aragtid waa program Java kamida code Java programyadeeda kamida markaas compilerkii loo gudbiyo compilerkii wuxuu soo gudbinayaa GVM kan waxaa laga soo gaabiyay Java virtual machines. marka tan waxay usoo gudbinaysaa midkan waa window kanna waa Unix kanna waa Mac oo Apple iyo isticmaasho. marka mid walba oo kuwan ka miduhu virtual machine kan luqadan uu fahmaa marka asagana wuu usii translate garaya wuu usii tarjumayaan. kanna diagramkan isla sidii haddaan arkaynay oo kaleeto step-yadan uu maraya markaas waxaa
java markaasi waxay ku siinaysaa wixii datadaadii outputkaaga intaanay martaa marka. Okay, java programs mid ka mid a waa kan haddaad rabto inaad aragto class. waxaana waa arki doonaa class wuxuu yahay all xasan, laakiin kan waa mid ka mid a programyada kaasaa ujeedo waa yani classyada ka mid a class first magaciisa la yiraahdo. marka waxa lasoo bandhigayo la rabo in lasoo bandhigana waxay tahay hello, in lasoo bandhigaa la rabaa oo java inta waxaa la rabaa program inta lagu qoro systemkan loo qoro hello ay banaanka kugu soo baxdo. Okay, marka marka tan waa waxyaabaha ugu muhiimsan oon ka bilaabi rabno marka, sida aad waxyaabaha itifaaqiyaadka ama waxyaabaha ay shuruudaha ay tahay ama waxyaabaha heshiiska uu yahay ay java markaad wax name ama magacaabayso inaad samayso la rabo waa waxyaabahan. Ko, waa inaad isticmaasho magac oo micno weyn leh inaad isticmaasho. yani markaad program samaynayso kolle markaad programmer noqoto waad arki doontaa haddaad wax aadan micno weyn samaynaynin aad samayso hadhow markii aad rabto programka inaad dib u laabato ama waxaad waa garan weynaysaa xasilada kan intuu ka yimid yaa sameeyey ma fahmayso wixii. laakiin waxaa la rabaa inaad samaysid mar walba inaad isticmaasho magac micno weyn leh ama aad fahmi karta hadhow inaad isticmaasho. mar walba waxaad dooranaysaa magac aad markaas sababta aad waxaas aad ka shaqaynayso u qalmaad mar walba dooranaysaa. leanna maxaa yeele mar walba ay kaa caawinayaan inaad mar walba magacyadaas markaad doorato waxay kaa caawinayaan inaad hadhow fahanto markaad gadaal ugu soo laabato. waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a variablada variable names, yani waxyaabahan magacyada isbedbedelayo yani mutagayir. yani waxa laga wada waxay tahay wax aanan qiimo rasmiya aanan lahayn waay, yani wixii isbedbedelayo oo sidaad rabto aad u isticmaali karto. variabladan marka aad rabto inaad magacyadooda baxsato waa inaad sida ay java hadda ay qabto ay kugula talinaysa aad u samaysato. waxaa la rabaa marka horta inaad isticmaasho first letterka xarafka ugu horeeya waa inaad ka dhigto lower case letter, yani waa kan ugu hoos koreeya waa xaraf yar inaad ka dhigto. labada magacyada waa la isku xirxiraa programinta, wax space looma dhexaysiyo maadaama ay isku xirayso. mathalan waxaad qoraysaa Soomaaliya aad qortay mathalan Soomaaliyada haddaad kasoo qaadato SOM haddaad kasoo qaadato haddaad rabto wax kale inaad ku xirto waa inaad sida hadda meeshan uu sameeyey oo kaleeta ereyga kale wuxuu ka bilaabanaya xarafka uu ka bilanaya xaraf weyn inaad ka dhigto. hadda isaga waa kana wuxuu kusoo qoran my vartan variable ka wada my marka tan ugu horeysa abta ugu horeysa waa small letter inaad ka dhigto, wixii kaloo ku xigayna inaad ka dhigto small ka wada dhigta. laakiin variable marka rabto inaad ku kabtood ku xirto waa inaa ereyga ugu horeeyo variable v-da waa inaad capital letter ka dhigto. haddaad ka dhigi weydo ayada oo yarayso hadhow fahamkii iyo waxa laga waday iyo ma fahmi karta. adi xataa haddaad fahamto qofka kaloo programmingka kaala shaqeynayo saa ogtahay programmingka sharikaadka markii lala shaqeynayo waa way baaxad weynta dad intaasoo qofa kula shaqeynaysa. waxaa laga yaabaa adigii kalaasyadaad samaysay qof kale inuu haddana wax ka bedelaya wax ku sameyn waa inuu fahmi kara marka waxaanaad samaysay. marka constant names magacyada joogtada ee thaabitka ah iyaga sidaana loo isticmaalayaa sidaanu u qoray mar walbaasi wuxuu kaaga digayaa inaad isticmaasho tan lower case inaad variablada u isticmaasho. taasaan ka tagnay variable names markaad samaynaysa iska ilaali inaad kan aad isticmaasho markaad rabto inaad kala saarto ha isticmaalin kan hoose jiitinta hoose ee keyboardka markaad aragto jiitin kore iyo jiitin hoose jirta tan hoose ha isticmaalin. underbar underbarkaas ha isticmaalin. constantiga markaad laakiin samaynayso constant nameska markaad samaynayso waxaad isticmaalaysaa all inay yihiin capital letters, inay yihiin xarfo waaweyn. xarfahaas waaweyn marka ay yihiinna waa inaad ku kala saarto markaad kala saarayso inaad underbarska ku kala saarto kan inaad isticmaasho ood ku kala saarto markaad constant names isticmaalayso. waxaanoo dhanna waa arki doonaa. method names markaad isticmaalayso waa arki doonaa. method wuxuu yahay class wuxuu yahay all waxaasoo dhan isagana waxaa la yidhi waa sidii wuxuu u dhow yahay variable nameska u dhow yahay. markaad isagana samaynayso xarafka ugu horeeya waa inuu small letter noqdo. markaad xarafka ugu horeeya small letter ka dhigto kii ku xigayna waa laazim inuu small noqdo. laakiin kii laba erey markaad isku xirayso kan kale labada erey meeshaad adiga aad faasila ama wax kale u dhexaysiin leedahay waxaa la rabaa inaad isku xirto
isku dheganaadaan, laakiin waxay ku kala duwanaanayaan waxaa waaye ereyga dambe xarafka uu ka bilaabanayo waa inuu capital noqdo, xaraf weyn waa inuu noqdo. marna ma isticmaali kartid underbar. waa waxyaabaha lagu heshiiyey oo Java markaad naminka samaynayso waana laazim inaad raacdo waxan. class name markaad samaynayso maxaa la rabaa isagana? class nameka sidiisa xarafka ugu horeeyana wuxuu ka duwan yahay, waxay ku kala duwan yihiin variable nameska iyo class nameka waxay ku kala duwan yihiin, iyo method nameka. method nameka saa sheegnay wuxuu u dhow yahay variable nameka isaga inta badanna, laakiin waa la wada qoraayo lama soo kookoobo. sida hadda variable nameka waa ujeedaa waa short, waa lasoo gaagaabiy. ama classka xarafka ugu horeeya waa inuu noqdo capital, xarafka ugu horeeya waa inuu capital noqdo. kii kalood ku xiraysay waxay ku kala duwan yihiin waxaa waaye marka kan waaye waxay ku kala duwan yihiin xarafka ugu horeeya waa inuu capital noqdo. ereygii kale oo ku xirmayay ereygaasna wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay capital name. waa inaad marka iyagina wixii kale oo classkan kusii xigayna waa inaad sii dhamaystirto oo sii wada qorto. intaasay ku kala duwan yihiin. marka sidan haddaad u akhriso oo sidan u fahanto wax dambaad uga baahanaysa male. darsigan intaanaan kusoo ekeynaynaa insha allah, waana sii wadaynaa. waxaana rabaa ilaa iyo intii karaankayga ah inaan sii wado oon duruus badan soo geliyo. wassalaamu calaykum.